السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومر kale iyo kulanti labaad iyo barnaamijkeennii amaba kanaalkeennii ka faa'iidayso maanta waxaynu ka hadli doonaa qaabkaad u qorshaysan lahayd sanadka cusub iyo qaabkaad qorshaha sanadka gudihiisa ugu dabaqi lahayd insha allah waxaan noqon doonaa sanadkii ugu fiicnaa ee ku soo mara noloshaada haddaba haddii aad doonaysid inaad ka faa'iidaysatid nala soco iyadii aanay waxba naga xigin sanadka cusub ee 2020 haddii aad ahayd mid sanadihii hore maalayacni iyo waxaan faa'iido lahayn kusoo dhammaystay ha ka warwarin weli waxaad haysataa waqti iyo fursad oo sanadkan waa in noqdo sanad cusub iyo bilow cusub imikiyo haatana soo qaado qalinkaaga buuggaaga iyo mastaradaada kuna raaxayso qorsheynta sanadka cusub tallaabadeenna koowaad waxay noqonaysaa xulashada hadafyada sanadka cusub ka bacdi waraaqad cad soo qaado laba qaybood u kala qaybi dhinac waxaad ku qori doontaa hadafyada sanadka cusub ugu badnaan 10 hadaf waxaana kasii fiican inay ka yaraadaan laakiin intaanad qorin ka hor waxaa muhiim ah inaad ogaatid farqiga u dhexeeya hadafyada iyo riyooyinka waxaana jira hab caan ah oo lagu qoro hadafyada waxaana la yiraahdaa smart goal setting waxaana inoo sheegaysaa in xaraf kastoo ka mid ah kelmadda smart ay xambaarsan tahay sifo ay muhiim tahay in laga helo hadafka waxaanaynu kusoo koobi doonaa 3 qodob oo muhiim ah qodobkeena koowaad wuxuu noqonayaa hadafkeenu inuu noqdo mid xamaasadna geliya isla markaana dhab ah oo inuu noqdo wax jira hadafkaagu waa inuu cad yahay oo maaha inaad tiraadid hadafkaygu waa inaan wax badan akhriyaa waxa ka fiican adoo yidhaahdaa hadafkaygu waa inaan ugu yaraan bil kasta buug akhriyaa sidoo kale maaha inaad tiraadid hadafkaygu waa inaan lacag badan kaydsadaa waxa ka fiican adoo yidhaahdaa mushaharkayga 30% ayaan kaydsanayaa qodobka saddexaad in waqtiga hadafkaagu xadidan yahay macnaha in hadaf kastoo aad qori doontid aad u xadidid waqtigii aad ku qaban lahayd sanadka dhexdiisa laga yaabaa in hadaf gaar ah ay tahay inaad xaqiijisid sanadka dhexdiisa amaba bil iyo maalin ka tirsan sanadka haddii aynu soo qaadano tusaalayaal la xiriira wixii aynu ka soo hadlaynay hadafkaygu waa inaan qur-aanka kariimka bisha rabadaanta dhammeeyo iyo marka horeysa iyo marka dambeysa hadafkaygu waa inaan luuqadda ingiriisiga barto 6 bilood ee ugu horeeya sanadka waxaan filayaa inaan fikraddan ii soo gudbiyey haddaba soo qor hadafyadaada sanadka cusub markaad soo qortid waxaad doorataa hadafyada ay laga maarmaanka tahay inaad ka tagtid sanadka kadib kuwaad qortid dhinaca kale kusii qor wixii aad ka tagtayna iska masax ugu dambeyn waa inay kusoo harhaan 3 hadaf oo muhiim ah ahamiyadda iyo awoodda aad saartid hadafyo badan laga yaabaa inay kaa xarimaan hadafyadoo dhan haddaba haddii ay arrimuhu kuu hagaagaan oo aad xaqiijisid 3 hadaf dib baad kaga dari kartaa hadafyada kale waxaanad raacin kartaa hadafyada fudfudud ee qabashadooda kugu qaadan karto ugu badnaan 2 toddobaad sidaana waxaynu ku xadidnay hadafyadeena sanadka cusub tallaabadeenna labaadna waxay noqonaysaa buuggaagii soo qaado kala fur kuna qor hadafyadii aad soo xulatay kabacdi ciwaan dooro ciwaanku kaa doontidna uu noqon karaa tusaale ahaan hadafyada sanadka 2020 waxaana fiican adoo qora siday agtaada ugu kala ahamiyad badan yihiin tallaabadeenna saddexaad soo rog waraaqadda kuna qor hadafyadaada bishiina koowaad waa January xulo hadafyadaada bisha adoo ku dhisaya hadafyadaadii sanadka cusub tallaabooyinkan soo socdana raac qodobka koowaad muu jiraa hadaf la xiriira bishan qodobka labaad waxaad eegtaa hadafyadaadii sanadka inta aad ka qaban kartid bishan una xadid hadaf ka tirsan bishan qodobka saddexaad maaha shardi inaad hadafyadaadii kolba qayb bishan aad ka qabatid waxaad awoodda saartaa hadaf gaara sidaana waxaynu ku xadidnay hadafyada bisha tallaabadeenna afraad kadib hadafyada bisha 2 waraaqadood oo kastoo iska soo horjeeda waxay noo matalayaan 7 dhammaystiran oo ka tirsan toddobaadyada bisha kadib qalinkaaga iyo mastaradaada
uu kala qaybi waraaqad kasta 4 qaybood oo isleeg. Fargees kasta wuxuu noo sheegayaa maalin ka tirsan toddobaadka. mid baa dheeraado kaana dib baan ka sheegi doonaa. Kadib fargees kasta waxaad ku qori doontaa magaca maalinta iyo taariikhda oo ku ag xigta. Kadib maalin walba waxaad ku hoos qori doontaa wixii aad qaban lahayd ee hadafyadaadii amaba mas-uuliyadahaaga ah guud ahaan. waxaad qabanaysid markaad si kooban qortid hoostiisa waxaad ku qori kartaa shay togan oo kuu dhacay. waxaan noqon karaa waxaad samaysay wax lagu yidhi ama wax kuu dhacay. waxaanan idinka ballan qaadayaa in haddii aad dabeecaddan la qabsatid bilow kadibna soo qaadatid buuggaagii kadib aad eegtid waxay ku qornaa inaad farxad weyn dareemi doontid iyo inaad ogaan doontid inaad sidii ugu habbooneed ee ugu wanaagsanayd usoo qaadatay beryihii lasoo dhaafay. ugu dambeyntii maalinta ugu dambeysa ayaad 2 qodob oo muhiima ku dari doontaa. qodobka koowaad qiimeynta iyo dib u raacidda toddobaadka. waxaanad si kooban ugu qori doontaa fargeeska ugu dambeeya si aad khaladaadkaaga wax uga baratid naftaadana u horumarisid. qodobka labaad sii qorshayso toddobaadka kale. sidaan waxaad ku wadi doontaa ilaa sanadka dhammaadkiisa insha allah. ilaahay waqtigaa noo barakeeyo. si aad ula socotid fiidiyada kale subscribe gare haddii uu ku cajabiyeyna like gare. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.